السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waxaa la dhahaa Ibrahim Sheekh Cali Diini waxaan ahay dhakhtar ka howlgala magaalada Columbus khaasatan outpatient clinic la yiraahdo Midland Medical Group. waxaan kaloo ka shaqeeyaa magaaladan la yiraahdo Zanesville, Ohio. ayadana waan ka shaqeeyaa marka maanta waxaan gudbinayaa wacyigelintii ay wadeen dhaqaatirinta gobolkeena ku nool iyo Soomaaliya meel kasto ay joogaan in kamida maadaama ay jiraan masiibadan adduunka oo dhan asiibtay ana u baahanahay mar walba inaan isxasuusino isku wacyigelino sidii aan uga tabaalaysan lahayn in aan dadkeena u gudbino waxa cudurkan uu yahay iyo sidii markaas aan iskaga wada kaashan lahayn anagoo wada dhan. waa masiibo weyn oo Ilaahay adduunka keenay wadamo waaweyn oo aad u waaweyn oo xagga caafimaadka ku hormaray, xagga technology-ga ku hormaray ayuu ka soo bilaabay. haddana waad arkaysaan meesha uu marayo. khaasatan magaaladan aan ku noolahay Columbus, Ohio. maanta waxay maraysaa caseska la og yahay oo la confirm gareeyay 106 bay maraysaa maantadan. Ohio ahaan waxay kor u dhaaftay inta la og yahay 880. dadka 880 ka 225 in lagu qiyaasay isbitaalada ku jiraan. xaaladda critical care kana waxa ku jira in lagu qiyaasay 100 qof baa ku jirta maantadan. waana ka sii badanayaan maalin walba, maalinta ka dambaysa aad bay u badanaysaa. horta waa maxay cudurkan? maxaase lagu gartaa? see looga hortagi karaa? hadduu kugu dhaco maxaa kula gudboon? intaas mar walba waa inaan ku dadaalno inaan isxasuusino. cudurkan COVID-19 la yiraahdo wuxuu ka mid yahay viruses oo markaas aad u badan oo markaas wayna soo jireen cuduradan la yiraahdo coronaviruska, laakiin numberkan COVID-19 ayaa ku cusub adduunka. waxaa jiray coronavirus ku dhaca dadka oo asaga sida qufac oo kale wax weyn aan sii geysan baa jira. kan hadda socda wuxuu ka yimid xoolo ayuu ka yimid, waa xoolo ku dhici jiray markaas dadkiibu u soo booday oo dadkiibu hadda ku dhacay kii xoolaha ku dhici jiray. marka jirkii bini aadanka ma ahayn wuxuu yaqaano virus uu yaqaano maaha, virus uu iska difaaci karana maaha. saas daraadeed ayaa keentay markaas inuu ummad badani ay u dhimato maadaama jirkooda aysan lahayn wax ka difaaca, waxaana uu yahay wax ku cusub. saa ogtihiin wuxuu ka yimid wadanka China wuuna faafay adduunka oo dhan buu ku faafay. in ka badan dad lagu qiyaaso 4 ilaa 600,000 dad lagu qiyaasay hadda sii maraysay. inta dhimashadana saa la wada socotaan maalinba maalinta kasii dambaysa way sii kordhaysaa. cudurkan wuxuu ku dhacaa qaybta la yiraahdo jirka qaybta neefsashada ayuu ku dhacaa sida hawo mareenka, hunguriga, sambabka ayuu aad ugu dhacaa. markuu sambabka ku dhaco wuxuu keenaa qufac iyo qandho iyo neef qabasho. saddexdaas baa ugu caansan calaamadaha lagu garto. laakiin wuxuu kaloo leeyahay oo kala mid yahay fayrasyada caadiga sida qufac oo kale iyo madax xanuun uu leeyahay, wuxuu leeyahay hindhis uu leeyahay, marmar jirka oo dhan oo ku xanuunaya intaas oo dhan uu leeyahay. dadka qaar koodna calool xanuun iyo lalaba iyo waxaasna uu keeni karaa. laakiin inta ugu waaweyn calaamadihiisu waxa weeye waa qufac qalalan, neef qabasho
iyo qandho zaa'id ah. see cudurkan lagu kala gudbiyaa? waxa ugu badan oo hadda ognahay lagu kala gudbiyo waxa weeye qof qaba oo markaas qof aan qabin ay isla kulmaan oo markaa neeftiisii wixii respiratory dropletkiisii wixii ka socday markaas ay asiibto qofkii oo qofkaas uu ku hindhisay uu ku qufacay, ama qofkii qabay meel uu taabtay aadna taabato oo markaa gacantaa ku taabatay afkii ama sankii ama indhihii aa ku taabato, taasna waa lagu kala qaadaa, wuu ku gudbi karaa. saan ognahay hadda ilaa 1 ilaa 3 beri uu ku noolaan karaa baa la yiraahdaa viruskaas meelaha banaanka qof qaba meeshuu taabto kale uu kaga noolaan karaa. haddii meeshii marka taabato iyadoo masaxnayn oo kalin garaysnayn saas waa ku qaadi kartaa. maadaama aan kasoo sheekaynay sida la iskugu faafiyo oo ugu weyn tahay qofkii meeshuu taabanayay qofkii qabay meel uu taabtay aad taabato oo kugu qufaco oo kugu hindhiso, calaamadihiisiina aan kasoo sheekaynay oo ahaa qandhada, neef qabashada iyo qufaca. goorma ayuu qofka dhakhtarka u tegi karaa ama wici karaa? cudurkan saan soo sheegay waa isaga kala midka ahaa qufacyadaas calaamadahooda oo kale. qofka hadduu isku arko calaamadaha aan soo sheegay ama uu la saaxiibay ama u dhawaaday qof qaba oo kale, contact sameeyeen, isku soo dhawaadeen, wax 3 feet 6 tilaabo ka yar ay iskala sheekaysteen oo kale, kabacdi calaamadihii uu isku arko, waxaa habboon intuusan dhakhtarka u tegin ama isbitaalka aadin inuu waco dhakhtarkii oo u sheego waxa uu isku arkay calaamadaha. markaas kabacdi baa qofka waxa la leeyahay ama meeshii caafimaadka imow adoo afka ku xiran yahay, markaasaa lagu baarayaa. ama haddii wixii hayay ay yar yihiin, qandho iska yar tahay, xanuun yaroo iska yar tahay, waxaa lagula tacaalayaa in la dhaho gurigaada joog, albaabkaada soo xiro, intaa ka biskoonaysid cid kale iyo ha u gudbinin, adigu cudurka ha u gudbinin, gurigaada iska joog. seebaad loo baaraa cudurkan? sida ogtahay waxaa loo baaraa hadda waxaa lagu baaraa swab baa la sameeyaa, bahal yaroo swab oo sanka laga gelinayo ilaa iyo dalqada hunguriga la taabanayo, afkana mid baa laga geliyaa. wadamo waxay qaadataa jawaabta in lagu helo wax ka yar saacad. meesha hadda joogno kale waxay qaadataa 2 beri ilaa 3 beri ayay qaadataa. markii qofka la baarana waxaa la dhahaa gurigaada ku laabo, gurigaada joog ilaa jawaabta aad ka helayso, waxaad iska soo qaadaa adigoo cudurkii qaba. haddii markaa jawaabta loo soo sheegana markaas caafimaadka qolooyin ku shaqo leh ayaa u sheegaya qaabka oo markaas nafsadiisa ula tacaalayo. cudurkan see la isaga dhicin karaa? saan ognahay wax daawo ah ma laha talaal, daawo u gooni oo hadda la soo saaray ma jirto. sida keliya oo looga fogaan karo inuu kugu dhaco waxa weeye arrimahan soo socda inaad samayso. nadaafadda inaad ku dadaasho. nadaafaddu waa shardi kamid ah, nisfu min al-iimaan buu kamid yahay. nadaafadda inaad ku dadaasho, gacantii aad dhaqdo, saabuunna kula dhaqdo 20 second ugu yaraan inaad gacantii dhaqdo, inaad joogsaysato mar walba oo meel taabato kale aad iska dhaqdo. haddii aad heli karin hand sanitizer-ka waxa la yiraahdo inaad isticmaasho. waxa kaloo habboon qof walba inaad ka fogaato ilaa 6 talaabo inaad ka fogaato. waxa kaloo habboon oo ka hortaga ah in haddii aad qufacayso ama aad hindhisayso aad afkaada daboolato ama saanoo kale u qufacdo. haddii aad ogtahay qof qaba, ka fogow. waxaad laasimtaa nadaafadda. intaas waa inta ugu badan oo hadda la og yahay qaabka
preventive ka ah oo qofkii markaa ku mancinaysa inuu ku dadaalo xagga nadaafadda inuu ku fogaado ka dheeraashaha dadka in meel u dhow u jirsado maxaa yeelay qof qaba oo kale hadaa u dhawaatid wuu kugu dhici karaa oo wuu kugu neefsan karaa hadii aad heli kartid bahasha wajiga lagu sanka lagu xirto oo kale waad isticmaali kartaa marka suuqa aadi karto oo kale waa xiran kartaa qof kasto xanuunsan aad aragto ka dheerow waxaad ka soo qaataa qof kasto aad aragto inuu cudurkii qabo maadaama aad ka soo qaado inuu cudurkii qabo adigana waxay kuu sahlaysaa mar walba inaad foojignaato aad ka fogaato qofkaas cudurka qaba waxaan waa cadow aan la arkaynin cadowga marka la arkayo waxba u tabaabuleysata si xeelad baa la timaada isaga difaacdo dagaal baad u qorshaysaa kan laakiin xeeladiisa cadowgan waa cadow aan la arkayn waa cadowgaas aan muuqanin marka qof kasta iyo meel kasta oo taabanayso waa inaad ka soo qaadaa inay cadowgii yahay waa taabatay gacmahaaday dhaq qof baa u soo dhawaatay intii lagugu talagalay ka fogow ka soo qaad qofkaas inuu qabo marka intaas waa in aad kaga hortagi karto qofkii maalin dhaweyd hadda magaaladeena waxa ka dhacay dadkeenana aan u baahan yihiin inay ku baraarugaan ka soo qaad qofkii waa lagu sheegay ama waa isaga shakiyay qofkii hadii lagu sheego cudurkii ama looga shakiyo waxa muhiim ah qofkaas inuu asaga isgaarantilo inuu gurigiisa isku soo xiro hadii gurigaas masquul uu leeyahay uu heli karo qol iyo masquul isku dhagan inuu halkiisaas joogo cuntadii loogu keeno biyihii loogu keeno intay xaaladiisa khatar ka ahayn ka soo qaad hargab yar baa haya qanduu leeyahay qof qabu u tagay markaas oo kale isbitaalka waxba kuma qabanayaan hada isbitaalka aad way ku soo celinayaan gurigaada joog ciyaalka ka dheerow qofna yuuso ku soo dhawaanin kana ilmahaygii ah kaalay ha dhihin waa odaygii ha dhihin waa xaaskaygii ha dhihin ilaa 14 beri ama ilaa intii aad biskooto gurigaadaas joog qolkaadaas joog cidnaha u soo bixin dadka ha soo dhaxgelin suuqa ha soo aadin ilmahaadana ka fogow maxaa yeelay magaaladeenan hadda aan joogno waxaa ka dhacday in laba qof oo waalid isku ah ilmo iyo hooyadood inay aad u kala fogaanin ka bacdina la isku daartay haddana markaas ay labadoodiiba la xanuunsan yihiin markay ka fogaanshaha mar walba lagu leeyahay ka fogow maaha dadka ajnabiga kaliya oo aad aqoon ka fogow maaha hadii adiga calaamadii aad isku aragto ama aad isku ogtahay lagugu sheego ka fogow hadii aad heli karto inaad hotel kaliya degto oo qol kiraysato saasa asxan ah saasame hadii aad qol basement heli karto iyo musqushiisa meeshaas joog ilaa xaaladaada ay ka darnaato isbitaalada waxa loo ogol yahay kaliya dadka aadka u xanuunsan markuu qofka aad u xanuunsado ay nafti aad u dhibayso qandhadii aad u karkarinayso qofkii aysan waxba ka degayn isbitaalada markaas la jiifiyaa hadba xaaladiisa say ku salaysan tahay bayna isbitaaladu hadba qayb u geeyaan dii iska sahlan tahay meelaha sahlan baa la geeyaa hadii aad u xumaatana waxa la geeyaa critical care ka meesha ICU ga la geeyaa meeshaas marka waxa lagu siinayaa oxygen wax qalabkan la yiraahdo ventilators ka u isticmaalaan oo markaas oxygen ka siinaya tubooyinkii waxa lagu xiriyaa faleembooyinkii saasa lagu la tacaalaya maxaa yeelay qofkii guriga ma joogi karo markaas xaaladiisu waa xaalad aad u daran laakiin hadii qofkii uu sheekaynayo oo wax cunayo uu soconayo ma haboono inuu isbitaalka aado ma haboono waxa haboon gurigiisa inuu joogo gurigiisana markaas uu isku daaweeyo daawada asaga daawo jirta ma jirto laakiin daawada laga hadlay waxa weey tii qandhahayso qandho jabiyaha qaato haday la laba yar iska hayso kiniiniga la labadii ha qaato biyihii ha xabo cuntadiisii ha cuno saasa laga wadaa laakiin haduu aad uga darnaado markaas isbitaalka inuu aado ayaa qofkii loo shartinaya message-ka ani u gudbinayo umadeena waxa weeye dal iyo dibadba jooga waxa weeye in aad
la qaato wacyigelinta ay wadaan hay-adaha caafimaadka, wacyigelinta culimada ay wadaan. waxaa marmarka qaarkood aad arkaysaa qof dhahaya maxaa u kala fogaanaynaa, wixii ilaahay keeno waa nagu dhacaya. waa run, waxa laga cararayo waa qadar ilaahay, waxa loo ordayana waa qadar ilaahay. qofna tiisa ma dhaafayo, qof walba waqti buu leeyahay, laakiin taxadar baa lagu yiri. marka inaan taxadarno in wixii markaas nafsada bini aadanka lagu badbaadin karo, qofka insaanka nafsadiisa wax ka qaalisan male. hadiiba islaam yahayna iska badaa warkeeda, nafsada oo la badbaadiyo ayaa wax walba ka weyn. in meel la isugu yimaado, in la sheekaysto, in la ciyaaro, waxaasoo dhan waxaa ka weyn nafsada qofka islaamka ama qofka bini aadamka. si kastaba ha la sameeyo, in la badbaadiyo ayaa ka weyn. marka wacyigelinta si fiican in loogu dhaqmo, in talooyinka caafimaadka dadka ehelka u ah hay-adaha ay soo jeedinayaan in la qaato, in markaas farihii mar walba la iska dhaqo, adigoo muslima markii horeba nadaafsanaa haddana sii badsoo dhaq